Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Daawadayaal ku soo dhawaada barnaamijkeena Amuraha Islaamka ee Warsan Media. Barnaamijkeena Amuraha Islaamka maanta waxaan ku soo qaadan doonaa haddii eebeed madaxweynaha dalka Turkiga Rajab Tayyip Erdogan ayaa xariga ka jaray masjidka ugu weyn dalkaasi uu yeelanayo laga dhisay magaalada Istanbul. Masjidkan weyn ee caalamiga lagu dhisay magaalada Istanbul oo madaxweyne Erdogan xariga ka jaray dhismihiisa waxaa la bilaaway sanadkii 2013. Dhismaha masjidka weyn oo ay ku kacday lacag 150 milyan oo liiraha Turkiga oo dhiganta 66.5 milyan oo dollarka Mareykanka ah. Naqshada masjidkan ayaa si weyn loogu dareemayaa farshaxanka Uthmaniyiinta iyo farsamooyinkii casriga ahaa ee hadda dunida laga isticmaalo. Waxaa halkii mar ku dukan kara 63,000 oo qof, halka masjidka hore ee Turkiga ugu weynaa ee Sabanka Central Mosque oo 1998 laga dhisay isla magaalada Istanbul uu awood u lahaa inay halkii mar ku dukadaan 28,500 oo qof oo kaliya. Sabanka Central Mosque, masjidkan cusub ee ugu weyn Turkiga waxaa lagu dhisay daanta qaaradda Aasiya ee magaalada Istanbul, iyadoo oo dhismaha masjidkan uu soo socday muddo 6 sano ah. Masjidka cusub ee Kamlika oo ugu weyn Turkiga lagana dhisay magaalada Istanbul waxa uu leeyahay 6 miraayadood oo u taagan 6 tiir ee uu islaamka ku taagan yahay. Dhismaha masjidka waxaa qayb ka ah matxaf looga talagalay in lagu keydiyo laguna soo bandhigo taariikhda iyo ilbaxnimada islaamka oo dunida ka soo kordhiyay, hoolal shirarka la galay iyo goob gawaarida la dhigto. Xafladda masjidka weyn ee Kamlika lagu furiyay munaasabad xariga looga jaray masjidka ugu weyn ee dalka Turkiga waxaa ka soo qayb galay marti sharaf daafaha caalamka ka kala socotay oo ay ka mid ahaayeen madaxweynaha Albania Alira Meta, madaxweynaha Guinea Alpha Conde, madaxweynaha Senegal Macky Sall, ra'iisul wasaaraha Palestine Mohamed Sheikh iyo marti sharaf kale. Naqshada masjidka Kamlika waxaa sameeyay 2 gabdhood oo waayo aragnimo u leh naqshadeynta dhismayaasha oo la kala yiraahdo Buhar Mizraq iyo Riera Ziamel oo ka faallada arrimaha Turkiga. Wuxuu dhismaha masjidkan uu ku tilmaamay mid Turkiga uu kor uga qaadayo diblomaasiyadda dhinaca dhaqanka islaamkana uu Turkiga isaga gadayo caalamka intiisa kale. Daawadeen intaas ayaan ku soo afmeerinaa barnaamijkeena Amuraha Islaamka oo maanta aynu ku soo qaadanaynay masjidka ugu weyn dalkaasi Turkiga. Inta barnaamijkan kiisa xigaan ku mudana waxay naga tagnaa sidaa ila barkeelay. Wassalaamu calaykum warahmatullaahi wabarakaatuh. أنا لولاه ما عمري قضى في اللهو واللعب.